Halkani waa isbitaalka Erdogan ee magaalada tan Muqdisho. Waa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo booqasho ugu yimid dadkii maalintii shalay ahayd ku soo dhaawacmay degmada Afgooye aaga Boodbood. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa booqashadani waxaa ku wehelinayay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur. Ra'iisul wasaaraha ayaa mid u ag istaagay dhaawacyada, wuxuuna wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin dhaawacyadani. Ra'iisul wasaaraha ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu rajiyay caafimaad degdeg ah inuu Eebbe siiyo dhaawacyadani, Allahna ugu rajiyay jannadii Al-Raxmaan kuwii ku geeriyooday qaraxii ay argagixisadu shalayto kula eegatay dadkani goob ay waddo ku dhisayeen shirkadda Enes oo laga leeyahay dalka Turkiga. Shirkadda Enes ayaa iyaduna ballan qaaday inay sii wadi doonto mashruucyada ay ka fulinayso dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shacabka Soomaaliyeed ku booriyay in ay u dhabar adeegaan dhibka ay wajahayaan, hadduu Allah yiraahdana laga bixi doono dhibkani. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa mid u ag istaagay dhaawacyada, isaga oo Allah ugu rajiyay caafimaad. Ra'iisul wasaaraha ayaa dadka Soomaaliyeed iyo qaarka Turkida ay halkan ku dhaawacmay u sheegay in ay ku garab taagan yihiin dhib kasta oo ay marayaan.